maxaatiriya may erti midi miidaysay maahino awr dabar la'aan dhahay war hooy hooy waxa cuna dugaage awr hadduu diboodo duunyadana ka leexdo calooshoo dilaacdiyo dugaag buu u halis yahay ruuxii dagaal badan dulmigana xumbaarsada dubaaqooyin gaariyo daqar buu u halis yahay eeddaan la yaabadee arxankee eedu daraana miyaad ka wadiin war waxaa la yidhi maal iyo dhaqaaliya ninaan magac ka doonaynin muraad iyo dan gaarana shaqada ugu mashquulaynin musuqmaasuqay aragtayoo waay lagu maalay maankiyo shakigii qalbiga lagu madoobeeyey maamule hufnaan muuqatiya daacad uga mayra warkii laga maqlana meel marshiya macallin sooma widaayay dadkaad sheegoyda maalmoodu malhaayo ka eri waxaa kaloo yidhi masqaniinyayaa iyo libaax micida saariyaaba maral loo dilyaa iyo si kale loo macneeyaaba naf waliba mudday leedahay iyo maalin iyo saacad oo waa midaan muddadi loo makibay minid la dhaafsiina maandheyma waxaad uga jeedaa malaka mayd muddaa uu taal mana ku mooga maandhehe war waliba leeray hamasho absuu habaarna taagdoruu habaartinha keerteen isagna arooda ani warkay si fiican u dhagaystaa abwaan maymuun biyow waxay tidhi hed aan heddaada ahayn hamuunkaa ma goyso hooyadaa hadday haysane hey bisay unkaa rabtaa war wax ma ogida maymuun waxay tidhi bilisay bilaal xabashaa kaabaxsii maroon bas ilaa tiraadin biriaslen ku haay maymuun biyo waxaa kaloo ay tiri ballanti waa ka baxoo beentay cadlee waaye beerninkeedii joogana balka dhiibi maayo maymuun waxaa kaloo ay tidhi ilaahay sidana waa yaqaan isaab malaa'iku keena way tidhi war adeer maymuun biyowdana sheegaysaan ma soodaaniyad ba ahayd afkaada allah ku celiyo gabar soomaaliyoodoo abwaanaday ee war gobolyadan maanta sheegaysaan kuwii hankoolka ma ahan warnimayo waxaa la yidhi fadwo beeca sheekh haysta iyo jaahil lacag haysta iyo cunug ka amar qaato oon diidin hadalkooda waa waxa adduunkii qarribay gebi ahaantiisa oo shacabka meelaha fadhiyo loo qarxinayaaye intaasaan ku soo koodaya ayaanan sii badin warwar ma haysaane dooddii ayaantaanba taagnaydoo cabdiraxmaan cabdishakuur ka bilaabatayoo mar siyaasadda gashay marna diinta gashay waa la soo afjaray sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha hay-adda culummada ayaa soo afjaroo ka hadlay wuxuuna yidhi wax kastoo dhacaba hadallada cabdiraxmaan soo duubay oo ugu dambeeyey waa lagu qanci karaa waana la qaadan karaa marka warkaasi halkaasu ku afjaranyay ila tahay aryaadhaha guddoomiyihii culummadu hadduu ka warramay wixii warkaas loo sii wadwado waa wax ula jeed dhinac kastoy taabahaysana waxaan dhihi lahaa how imaam dhex jooga bayd ilaah waxaan kuu eedo ma aqaan imaam dhex jooga bayd ilaah waxaan kuu eedo ma aqaan haye war wasiirkii hore arrimaha gudaha cabdi faarax siciid juxa wuxuu yidhi sanadkan wadaadkii ay wadaad kale isqabsadaan naartuu ku shaabadeeya siyaasigii siyaasi kale ay isqabsadaanina qarandimisnimuu ku shaabadeeya haa runtiisu lankii hooga koodhow hunsul kale ka dhawaa waa leere war aniga waxaan la yaabay xooga wadaniinta facebook isticmaala wax kastoo aad soo qorto qarandumis ay kugu jawaabayaan xoogaga wadaniyiintu maxaarisul jamhuuriya warnimayow maantoo dhan baa gawaydayna hadda gawigayga dhegaysta xalay gelin dambeedkii maraan gamaa ka soo toosay wax kale aygu sugan intaasaan ku soo koobayaa war gawayadii markaad 4.5 u qaybiseen ayay faraha ka baxeen arooda aniga gabaydiinas ma aqaanay gabaygayga si fiican u dhegaysta dhoobooyna soo mara dhagaxna soo arkaye dhaldhalaalkii xamaraa dhabarkii igooye intaasaan ku soo koobaa dhulka qoda hoos u dhaadhaca aynu dhareegne maad ka waddaa jala dhoobada adna dhagaxa kii ka dhuuntow dhibka diidow dhaxalku malid muu ka wada eebbaagoo gabaygi gooyo waxuu iila ekaaday heestaan soo socota nin hadda ka hor qaadayee yidhi aan shagaan saxsooridi aan gareesta hooshe sooma diidi korotaanici heesta cabdulla sheegay waxaan ku soo xasuustay hees ay qaaday hiba maxamed hore u qaaday ninaa ka daba qaaday markaasuu wuxuu yidhi luquntayda dheer iyo laafyaha garaaraha warwar ma haysiina maanta baarlamaanka waxaa hor tegey wasiirada amniga iyo gaadiidka iyo taliyaha booliiska ma xilkiyaa laga qaaday wasiirka amnigu sow xildhibaan maan haytaa xildhibaanadii hortegoo kale war maanta waran iyo gaashaana lagu dhegaya war wasiirka
gaadiidku soo madaxweynaha Jubbaland maahan Omar Gareen aryaadhaha horta ayaamahan Alfa Group intay ka baxda waa waaye waa la booliseeyay ma bac ka siiyay naqdeen war Alfa Group haday boolis noqoto bac ka sii noqon mayse buka sii noqonaysa warwarkaan ay qasanina dhageysta wasiir Omar wuxuu yiri wasaaradda wax musuqmaasuq oo ilaa hadda lagu soo eedeeyay ma jirto ee su'aalaha rabtaan weydiiya kadib xildhibaanada salaada wuxuu yiri warbixinta inta dowlaha guud qaybta ugu badan ayaa ku qornaa maanta kale in ma salaad makrofanka loo dhiibo ma ahaynba sababtoo waa mucaaradan xisaabtan ka baxayn war xildhibaan Cabdi Fataax wuxuu yiri nimankan baarlamaanka la horkeenay su'aalaha weydiinayna ma ka jawaabayaan ee waraan loo jooganay ka hadlayaan taas ma kasna us ani kasi laakiin isdhumiyay ida waleere war maanta oo kale xildhibaan Cabdi Fataax warkiisu qabasho ma leh sababtoo ah taliyaha booliska hadda ka hor dagaaleen ayaa ka hor muuqda nin kastaaba wuxuu rabaa sheege waran loo waxaan ku leeyahay haddoo moolku hoos ku liqo madaxu soo jeedo ambaduul aan maamuli jiraa igu masiiboobay oo maqal hooyada daba martaan xari ku meershaahe adiguna majuusiga u tali marada ku xeeytay anna miiskiyaan taaganaha layna mari maayo warna maca salaamaan ku iri talana waa mawle warna maca salaamaan ku iri talana waa mawle Abdullah eeba oge war weyn way wadnama waxaan dhageystay Professor Jawaari gudoomiye hore baarlamaanka oo shalay baarlamaanka fadhigiisa ka hadlay oo xilkiiba waa laga qaaday sidee nabadii nool ugu ogolaatay meesha edeb lahaa waa xildhibaan xasaasiyad leh ambaray xasaasiyad hay xusuusinin hadda ana korkiyo dhan cuncunaye war Soomaaliyeed xasaasiyad qabtay naga dhageysta warka war arrimo xasaasiyaha dalka ka jira lagu yiri xasaasiyad lagu ma dhig wuxuu baarlamaanka soo hordhigay qoraal uu soo farsameeyay oo qaanuun ah oo uu yiri iska fiiriyo haduu idin anfacaya ka qaata wax hadal dheerna waa jeediyay oo tala ah marka waxa baarlamaanka shalay ku soo biiray kelmado aan waayahan maqal oo naxariis leh oo kelmado odayeed oo dardaaran ah hadda ka horna hadraa wuxuu yiri erge iyo hadii afti loola tago tol u aabaheed muxuu oran lahaa oday lama file horta warka Jawaari waa fiican yahay waxaase hore loo yiri araaba fadhaa quusiyan warnimayo anigu shalay Professor Jawaari waxaan ka bartay jamhuuriyad marka la dhisayo in loo baahan yahay marka koobaad dastuur marka labaadna xeer hoosaadka golaha shacabka marka saddexaadna sharciga jinsiyadaha marka afraadna sharciga doorashooyinka marka madaxda kale la midka ah markay hadlayso allaheed haduu allayahay isxaqxaganina waxaan ka baran war inta aad sheegtay jamhuuriyadda Soomaaliland way leedahay ee wala weynay xaalkiinu may jiidaan ku jiideeba arooda hora waxa loo yiri war waayeel hadii la yeeli lahaa dan waxa waxar mucuni lahayn aniga Professor Jawaari hadalkiisa waxaan u qaatay waan soo socdaa koowde waxna waa sidaa lama dhe baarlamaanu ha fududa arooda aniga hadii warkayga la yeeli lahay duur joogto dhan leega ma qaxilayno darsaalaha ma kala aadi lahayn war xildhibaan Maxamuud Siraaji waxa uu yiri doorashadii 2016 hadii loo laabto oo ergadii wax dooratay wax doortaan wadanka waxa imaanaya xildhibaano shabaab iyo madaxweyne shabaab xildhibaanka ma waxa uu la jeedaa shabaab ayaa odayaasha dhaqanka tashkiiliyay oo waxay keenayaan ergooyin shabaab ergooyinkuna waxay keenayaan xildhibaano shabaab xildhibaanaduna waxay keeni doonaan madaxweyne shabaab war madaxweynaha shabaabkuna wuxuu keeni doonaa ra'iisul wasaare shabaab ra'iisul wasaaraha shabaabkuna wuxuu keeni doonaa wasiir shabaab muga wasaarada oo dhan shabaab ay naqayaan miyaad ka wadiin shargudban shaydan xijaaban ilaahay nuguma keeno waxaad sheegaysaan waraadar dhagaysta war ma haysaane Soomaaliland roobkii duufaanta watay ayaa gaadhay waxaase ugu darayd Hargeysa ayaa qoys dhani uu guri ku dumay war ma haysiin ciidamada Soomaaliland iyo ayax ayaa dagaal xun ku dhaxmaray gobolka Sanaag kadibna ciidamada Soomaaliland bishiika ay adeegsadeen war aadar waan fahanay in qoladan aan jaarkanahay in ayax lagu soo dirtay arnaga aamusan inuu ayax ku yaacay armi waa ridayaa war Puntland roobka iyo duufaantu qasaare badan u geystay baa leeyri war ma haysiin beledweyne xaafadaha qaroobiga ayaa markale ku fatahay airportkiina waa xirmay shargudban shaydan xijaaban war ma haysiin waxa la yiri madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne Xasan Sheekh maalintay madaxweyne farmaajo la kulmeen ayaa war ugu dambeysay war kulankaas ma arbaca ahay awood baan jirin xagoodo afkiiba juuqda gabay aryaadaha odayaasha ma tahliisha arbaceeyaa gaartay there is no water from Afgoye war Faisal Cali waraa wuxuu yiri amay waxa sabab loogeey in Soomaaliland uu kala qeybiyo war Faisal wuxuu yiri
maamul goboleed lixaad ayaa la samaynayaa shargudban shaydaan xijaaban shargudban shaydaan xijaaban shargudban shaydaan xijaaban shargudban shaydaan xijaaban